dalada sooyo runtii waa dalad guuna waxay jirtay muddo badan laga soo bilaabo 2003 bishii 6 ayaa waxa aasaasay dalada sooyo odaygu ka soo gaaray oo soo dhaweynayna u saacaduna Abdurrahman bin Sagada sugayna insha Allah isnay ma ku iman doorkan cid u baahida badan oo musharaxiinta cid u baahan oo cod bixiyaasha waxaan rajaynaynaa inaan u habran in la xisaabtano cod ma bixinayno runtii bilaashaada dhalinyarada Soomaaliland ay doorkan waxaan bixinaynaa cod aad ugu hawshootaan إن شاء الله كيلو قلبي مهمة وين بينات هاي برجرسية هامنا معركنا هيئة الزوج البادية يلا أو يلا أو عن صوص بدن هيسن أقوم بدن لهاي والله يسكم عمله إلى ما معركنا يلا أو ينادي ستة مجانا يسكبدلين وحكر كأنه وطن هنا كم موضوع runtii waxaan sunta ogaan tahay farxad aad وحفلة runtii noogu suntan isbedel awoodeed oo dimuqraadi ah council iyo gudoomiye ay bedelayaan council iyo gudoomiye cusub sidii halkan uu ka sheegay agaasimaha dalada Soonia waxa kale oo iyaduna ah runtii wax remarkable ama wax yaani inay tahay in hoosta laga xariiqaa 8 shir oo waqtigoodii ku dhacay inaan ku hadlo 6 gudoomiye afkood marka laga yimaado labada gudoomiye maanta isku wareejinaya dhinacna sharaf bay tahay maanta ka soo qayb galo ama ilaahay ugu sugo inaan ka soo qayb galo xafladii 8aad ee lagu kala xilka lagu kala wareegay maadaama de kullu odayaashii Soomaaliya ka mid ahay waxaan leeyahay waxyaalaha yaanka lagu soo istaajiyay waa dadaan iyo waxsheeg waxaan jeclahay saddex maadaama halkan ay fadhiyaan madaxdii qaranku madaxdii asxaabtu dad fara badan oo runtii laga yaabo Soomaaliya in magaceeda mooyaane aanay kulli laga yaabo inaan xog badan ka helin waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo 3 arrimood oo Soomaaliya ay tahay laga barto waa 3 arrimood oo amaano tahay waa midda koowaad waxa weeyaan doorasho aan xilligeedii dhaafin waa sidii badan dadkii horeeyay inta ay ka dhawaajiyeen taas waa arrin u baahan Soomaaliya laga barto waa number 2 Soomaaliya waxa laga bartay campaign adag oo runtii aan waxba la isku harin oo marka qaar badan booliso campaign madaxweynenimada inuu ka baculusi laakiin muhiimadu ma aha taas waxaan jeclahay dhalinyarada runtii inaan saddex soo jeediyo Soomaaliya waa gobol aynu wada leenahay oo dhalinyarada Soomaaliland wada leenahay afartii sano ugu dambeeyna soo jirtay dhalinyarada Soomaaliland waxa kula dardaarmay inay si wada jira ay uga qayb qaataan horumarka dalka guddiga qabanqaabada afka ku hadlaya waxa si gaar ah u mahadnaqaya duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Ciidiis Soolteeko oo aan laantii xafladina qabsoonteen qaybtu ka geystay waxa kale oo mahadnaqaya intii gudoomiye hore dalada Siyaad Umar Cali iyo hoggaankiisii hore sidii fiicneeda ay u soo shaqeeyeen waxaan kale oo mahadnaqaya agaasimaha dalada iyo shaqaalaha xafiiska sida fiican ay xafladan ay shaqeeyeen hoggaanka cusub ee hogaaminaya Cabdicasiis Ciise Saalax oo nin dhalinyaro firfircoona oo karti ixtiraam iyo sharaf ilaahay u dhaliyay waxaan u rajaynayaa inuu isbedel ballaaran ku sameyn doono dhalinyarada Soomaaliland halkan waxa fadhiyo wasiiro badan iyo mas'uuliyiin dhalinyaro oo xukuumadda madaxweyne Axmed Siinaaya ka mid ah wasiiradaasi runtii oo wasiiro dhalinyaro inaga inay nabadtalaan waana waxqabadkii xukuumadda waxaan u sheegi lahaa runtii saddexda musharax sida Axmed Siinaaya oo dhalinyarta u dhiirigeliyay haddaad u dhiirigelisaan oo intaasoo wasiir intaasoo agaasima iyo intaasoo volunteer ah oo aan ka mid ahay oo aan midii madaxweyne Siinaaya
haddaad la timaadaan cod badan dhalinyarta waad ka helaysaan laba tabar keliya kumaan u jeedinayaa mid waxa weeye Soomaaliland 10 ay ka barato Soomaaliya waa dalada shirweynahoodu aan maalin dhaafin sidoo kalena intuu loo laga dhex maro labadii qof ee kale ay si wada shaqeeyaan waxaa kaloo inuu muujisa kala oo Soomaaliya ku arkay weli ma arag gudoomiye laba jeer soo noqday wiimaada waa u tagaa marka Soomaaliland 10 baa u sugan maadaama civil activists ahaa oo la aqoonsan si NGO soo shaqeeyay waxaan xasuusinaa walaha cusub NGO-yadu marxaladay maraan marxalada ilaa jirto oo stage oo to the peak halka ugu sareysa